Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay dhammaan asxaabta meel kastoo aad joogtaan. Kusoo dhawaada channelka. Waxaan rajaynayaa sidaan anigu caafimaad qabo inaad idinku caafimaad qabtaan. Casharkani waxaan kusii wadi doonaa casharkii aan qaybta koowaad kusoo sameynay oo aan soo duuduubnay muuqaaladii aan soo duubnay inaan ku hagaajino aan ku edit garayno anagoo isticmaalayno appkii oo InShot app ah. Appkani wuxuu appyaasha kale ugu duwan yahay haddii aad iibsato waxaad kusoo active garaysmaayo transitiono iyo effectsyaal oo aad iyo aad u qurux badan iyo waxyaabo kale oo aad u fara badan. Appkan marka aad telefoonka kusoo ridato wuxuu weliba aad iyo aad uu kugu fudud yahay inaad fiidiyoyaasha kala jarjarto, muuqaalada aad isku keento, qoraallo aad ku darto ama text ama iskala title aan ku dardarto iyo inaad weliba effectsyaal iyo transitiono oo kala duwan aad u isticmaasho. Muuqaalkii qaybta koowaad oo hordhacan ugu dhignay oo dhan waxaan ku sameynay isla appkan. Waxaan isla wada sameyn doonaa maanta appkan oo aan kusoo sameyn doono fiidiyoyaashii aan soo sameynay aan soo duubnay. Anagoo maaragtay aan isticmaali doono aan uga hadli doono inaan ku sameyno transition, inaan ku darno qoraallo, inaan colorka ku hagaajino, ugu dambeyntii aan export ku sameyno anagoo dhinacyo kala duwan aan export ugu sameyn karno. Marka ugu horeyn appka ayaan soo fureynaa InShot app. Marka waxyar waxaan ka hadlaynaa appka iyo qaabkiisa. Aniga already marka appkan xayeysiin umay laakiinse aad iyo aad aan ugu helay markaan browbeeyay appyaal fara badan oo aan ku hagaaji karo telefoonka muuqaalada aan ku hagaaji karo. Laakiin appkan ayaan aad iyo aad ugu helay. Marka qaybta maaragtay waxyaabo badan ayay mar walbaba kusoo darayaan. Hadda qaybtan hoose waxaad u jeedaa materials ay ku qoran tahay animationo iyo maaragtay capture iyo fonts ama qoraalada aad u qurux badan. Hadda misalna qoraalada camal hadda qoraalkan oo kale qoraal cusub oo hadda uu keeno camal waaye license u baahan yahay. Marka haddii aad soo iibsatay marka appka waxyaabahan oo dhan free ayaad u helaysaa. Waxaa kaloo arkaysaa marka qoraalada oo qoraalka ka hesho oo kale waa soo download garanaysaa adigoonan u baahnayn inaad iibsato. Haddaad fiiriso dhinacan oo animationada oo kale animationadan oo kale qaybta alaala qaybka rabto ayaad soo download garaysan kartaa. Waxyaabo fara badan oo ku active garayna run ahaantii aad iyo aad u fiican yahay. Hadda marka qaybtan quseys aan aadno oo saddexdan qaybtan waa create new meesha ku qoran tahay oo video iyo photo iyo challenge marka anaga waxaa maanta na quseyso aan sameynaynaa muuqaaladii aan soo duubnay oo aan ku edit garayno videoga. Marka qaybtan oo videoga aan taabanaynaa laakiin haddeertan waxaan rabnaa marka inaan from scratch anigu aan sameeyay oo videogii waa kana oo 54 second marka videogii aan sameeyay oo dhan ayaan marka aan soo bilaabaynaa marka anagoo sameynay marka saa u sameynay iyo qaabkan u sameynay. Waxaan leenahay marka new ayaan leenahay new markaan dhahno ani marka wixii dhan album ayaan isugu geeyay. Albumkana waxaan u bixiyay how to marka videoyaashan ayaan rabnaa inaan edit garayno. Marka waxaan sameeyay aniga videogan aan fiirina marka kan iyo midkan iyo midkan iyo midkan marka dhammaan aniga marka waxaan sameynayaa calaamadaasaan saaranayaa kan aniga ma ku jiro intaasoo dhan. Laakiin hadda midkan waxaan u reebay 5 daqiiq iyo wax la jiro waaye marka uma baani inaan asaga dhan aan soo wada qaado laakiin waxiraan uga baana inaan soo qaado. Marka waxaan sameynayaa calaamadaas yaroo maqaska taabanaysaa. Haddaad rabto marka videoga qayb yar inaad ka soo qaadato asaga dhan soo wada qaadanin marka hore waa fiirinaysaa waa daaraysaa markaad daarto ama iskale waa cabaara fiirsanaysaa waa daaraysaa markaa fiirsato meesha aad uga baahan tahay ayaad ka bilaabaysaa. Marka kadibna calaamadan labadan gees oo cadcadka ayaad soo jiidaysaa. Calaamadahaas markaad soo jiido geeskan aad ka soo qabanaysaa iyo geeskan aad ka soo qabanaysaa. Sidaasaa marka aad u sameynaysaa videoga meesha aad uga baahan tahay kadibna calaamadaasi oo saxda taabanaysaa okay aad leedahay. Marka haddaad rabto inaa video dhan aan soo wada qaadanin oo qayb yar aad soo qaadato qaabkaas aad u isticmaalaysaa.
kadibna waxaan taabanaynaa calaamadan cagaarka saxda intaanu dhaxda rabno inaan soo wada qaadano. haddaan rabno inaan iska dhaafno oo mid aan rabno inaan mid aan ka tagno, kadibna video besa click ku siinaysaa. kadibna calaamada saxda ayaad okay ku leedahay. marka videoyaasha dhan wuu kuu soo qaadayaa, kadibna wuxuu kuu keenayaa timelineka markuu keeno waa meesha aan rabno inaan videoyaasha ku hagaajino, aan ku jarjarno, aan qoraalada ugu darno, aan kalarka ugu bedelno. marka abka asagaa shaqeynayo, asaga wixii aan soo dooranay oo dhan noo geynaya marka meesha, anagoon u baahnayn inaan hal aan usoo qaadno. okay, marka videogii marka meeshaan noo keenay. meeshaan waa meeshaan aan ku samayn lahayn, aan ku edit garay lahayn. marka ugu horeyso qeybta ugu horeyso aan rabno inaan soo isticmaalno meesha ay ku qoran tahay canvas. horta maxaan rabnaa inaan videoga ku sameyno? marka aan rabno aan export hadhow dambe aan ku sameyno inaan u adeegsano YouTube ama Instagram, marka meeshaan ayaad ka dooranaysaa. haddaad taabato waa marka ratio, waa aspect ratio weeyaan. qaabka aad rabto inaa hadhow aad sameyso. haddaad rabto inaad u isticmaasho Instagramka iyo TikTok iyo maaragtay Snapchatka, waxaad isticmaalaysaa asagoo 4:5 ama iskale 1:1. marka ama TikTok ahaan haddaad rabto inaad u isticmaasho, YouTube haddaad rabto inaad u isticmaasho. marka hadda anaga qeybtan waxaan u sameynaynaa inaan YouTube u isticmaalayno aspect ratio, marka qeybtaasaan ka dhignay. marka qaabkaasi aad usoo jarjarto oo qeybaha aad uga baahan tahay aad soo sameyso, waxaan isticmaali karnaa marka hadda qeyb kale oo ah inaan videoga aan kala hormarin karno. haddaan rabno video marka automatic kugu keenay, marka waxaad taabanaysaa videoyaasha qeybka aad soo duubtay qeyb kamid ah taabanaysaa long press. marka videoyaasha qeyb uu kugu keenaya. marka waxaa rabtaa qeybtan oo kale inaan horumarin oo qeybtaasi gadaal aan geeno, marka asaga ayaan drag iyo drop dhayna. marka waa soo jiideynaa, intaan keenaynaa. marka qeybtaas saasaan u kala wareeji karnaa. markana intaan kala wareeji karnaa, intaan u kala wareeji karnaa. marka sidaasaa videoyaasha u kala wareejin karnaa. marka haddaan rabno inaan clip oo masalan clipkan oo kale camal oo aan aragno inuu clip oo aan u baahnayn uu yahay, asagaa riixaysaa. markaa riixdo kadibna calaamadan oo meeshaan ay ku qoran tahay delete ayaad taabanaysaa. marka kadibna wuu ka baxayaa. marka aan duubaynay dabcan wuxuu la duubayaa codka ayuu la duubayaa. hadhowna markaan rabno inaan marka muusiga ama iskalo cod kala sii kor saarno, uma baahni marka codkii oo markaan duubayna oo qaato. marka hadda waxaa idin tusayaa qaabka aad uga bixin lahayd codka oo maaragta markaad duubaysid aad uga bixin lahayd ayaan idin tusayaa. marka waxaad taabanaysaa videoga aad taabanaysaa, kadibna waxaad taabanaysaa calaamadan oo volume ku qoran tahay aad taabanaysaa. dabcan marka aad taabato hoos waxaa arkaysaa extract audio meeshay ku qoran tahay aad taabanaysaa. kadibna codka iyo wuxuu kala bixinayaa iyo muuqaalkii ayuu kala bixinayaa. marka anaga uma baahni inaan codkii anaga markaan wax duubayna aan adeegsanayni inaan adeegsano. dabcan haddaan rabno codka xataa waa kala jarjari karnaa, laakiin hadda anaga waan ka bixinaynaa codka oo musica anaga aan leenahay ayaan saarnaynaa. marka codkii noo soo bixiyey kadibna delete ayaan leenahay. marka codka uu ka bixiyey, marka cod la-aan uu noqonaya. haddaad broweyso haddaad fiiriso marka kane waa cod la-aan, marka wax cod ma yeelanayo. codka marka qaabkaasa uga saaraysaa. markaan jarjarno aan inta aan u baahnayn aan sidaasi aan u adeegsano, aan isku keenno oo codka uga saarno, kadibna waxaan adeegsanaynaa inaan saarno, aan bedelno, inaan qurxino on kalar aan u yeelno. hadda waxaad u jeedaa kalarka cagaarka iyo waxyaabahaas oo dhan inay white ay yihiin, marka oo washed ay yihiin oo qaab daro u yahay. marka inaan kalarka nafsirkiisa qurxina u baahannahay. meeshaas markaad taabato kadibna waxaan taabanaynaa marka videoga qeyb kamid ah taabanaysaa. kadib meeshaas ay ku qoran tahay filter, saddexdaas calaamadood ay ku qoran tahay aan taabanaynaa. waxaan rabnaa marka aan adeegsano filtration inaan adeegsano. marka qeybteen rabnaa inaan u sameyno. haddaan rabno bright oo micnaha aftiin zaa'ide, originalka waa kaasa. midkaani waa midka oo natural ah, warm. marka waxyaabo badan oo kusoo active gareyn markastana waxyaabo fara badan ayay kusoo daraan.
run ahaantii. Marka abkan marka hore meel aad ka bilaabi karto oo aad kalarka ka qurxin karto ayaad keenaysaa. Hadda masalan aniga waxaan adeegsaday cinema midkaan la dhahayo ayaan adeegsaday videoga oo videoyaasha inta ka dambeyso dhan aan rabno inaan hal kalar ka wada dhigno aan cinema one u adeegsano. calaamadan labadan sax oo hal meel wada ah ayaan taabanaynaa. videoyaasha dhan ayuu apply to all waay. marka videoyaasha oo dhan oo meeshu timelineka ku yaalo ayaad ku samayn kartaa. haddaa laakiin aad rabto bes inaa qeybtan bes anaga aan soo jarnay oo keliya inaan u adeegsano haddaa rabna halkan calaamado sax ayaan taabanaynaa. inta aanan taabanin ka hor waxaan arkaynaa markuu original oo ahaaye sidaan markuu original ahaa iyo markii aan ku darnay originalkii saasoo ahaa marka aan ku darnay kalarka saasoo noqday. marka waa taabanaysaa waa gacantaada markuu originalka ahaa haddana waa ka qaadaysaa markaan kalarka aan ka dhigin. marka dabcan kalarkan hadda oo cinema one waa starting point oo meesha aan ka bilaabi lahayn waay. hadhow marka adjustmentiga tegaysaa filterkan ku noqonaynaa kadibna waxaan dhahaynaa adjustment aan dhahaynaa kadib meeshaan ayaan ka isticmaali karnaa haddaan rabno inaan lightka aan ku darno oo kale ama aftiinka aan ka yarayno ama aftiinka aan ku zaa'idino kadibna contrast aan sameyno oo waxyar aan ku darno haddaan rabno inaan waam ka dhigno ama so aan ka dhigno macnaha sida marka aad aragto oo kula qurxunaado ayaad u sameynaysaa. marka video walbaba aniga hadda marka hal nooc ma kuu tusin karo. video walba wuxuu ku xiran yahay marxaladda aad ku duubtay waqtiga aad duubtay meesha aad ku duubtay haddii uu yahay studio dhexdiisa oo nal iyo waxyaabaas isticmaalaysid hadduu bannaan yahay. marka mar walba waxaa u baahan tahay inaad samayso aad ku cayaarto aad ku baashaasho meelahan aad imaado oo aad aragto ishaada inuu soo qabanayo oo kula qurux badnaado. maanta oo dhan maaragtay waan ka sheekeynayna haddaan dhahno hal video kuma filno dabcan laakiin waxyaabaha aan adeegsaday iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ayaan idin tusaya inta kalena adiga iyo gacantaada. qaybtan marka haddii oo waxaan marka qayb ka mid ayaad rabtaa videogaaga inaa slow motion ka dhigto. hadda waxaa aragta videoga dhan slow motion inuu ahaa markaan duubeynay 60 frames per second ayaan adeegsaday. marka 60 frames per secondna waxaa macquul inaan ku sameeyo marka inaan slow motion ka dhigo ama inaan speedka ka yareeyo ama speedka ku daro. laakiin haddaa aad ku duubto 30 frames per second ama wax ka yar 60 frames per second wax ka yar haddaa ku duubto macquulku ma noqonaysa inaa slow motion ka dhigto. marka haddaa rabto inaa slow motion adeegsato markaa videoga duubaysid waa inaad adeegsataa aadan iloobin inaad 60 frames per second ka dhigto. marka hadda qaybtan oo kale ayaan rabnaa inaan ka dhigno inaa speedka aan ku darno ama speedka ka jarno. waxaan taabanaynaa meeshaan la dhahay speed ayaan taabanaynaa. marka haddaan ku darno speedka wuu sii soconaya haddaan ka yareyno speedka wuu yaraanaya. hadda marsalan waa yareynaya marka aniga waa arkaya hadeertaan haddaan aan adeegsado oo aan meeshaan 40 boqolkiiba 40 aan ka dhigo boqolkiiba 30 aan ka dhigo hadda 30 aan ka dhigo waa kaas tartiib u soconaya. laakiin mar walba waxaa fiican marka boqolkiiba 50 ama 40 wax saas ah si oo maaragtay speedka markaas uu fiicnaado. marka haddaa rabto dabcan speedka inaad ku dartana sidaas waa. speedka marka adiga waxaa u fiirsanaysaa qaab oo creativity ah. speedka mar aad ku daraysid iyo mar aad ka jaraysid. waxaan hadda marka u gudbaynaa inaan saarno music. marka inaan music gelino intaan iyo qoraal inaan gelino. waxaan ku hormaraynaa marka inaan qoraal gelino. dabcan marka hadda meeshaan rabaa inaan qoraal geliyo waxaan leeyahay marka text ayaan leeyahay waxaan ku duubay kadibna haddaan rabo marka inaan bedelo qoraalka meeshaan double a ku qoran tahay aan taabanaya. haddaan rabo inaan color ka bedelo marka qoraalka inaan ka bedela rabaa aan ka dhigo sidaas midka ila qurxoonaado ayaan adeegsanaya. marka qoraalka markaan qorno waxaan rabnaa marka inaan transition gelino oo qoraal oo hoos ka soo baxayo ama dhinac ka soo baxayo inaan ka dhigno. marka si aan u gelino transition waxaan leenahay marka edit ayaan leenahay. edit markaan dhahno calaamadaasi oo yaraan taabanaynaa. calaamadaas markaan taabano marka intaanoo dhan oo marka oo transition mid ka rabtida adeegsan kartaa. haddaan rabno kana adeegsanaynaa saana usoo qorayaa
waxaan ku dari karnaa speedka uu ka dhigayaan ku dari karnaa, darban waan ku dari karnaa si uu soo tartiib u soo wado. midkaa rabaa ka dhigi karnaa. marka in iyo out saa rabtid ayaa u samayn kartaa. marka haddii aad taabato meeshaan kadibna in ayaan leeyahay, kadibna calaamadaasi okay ayaan leeyahay. marka waxaa ujeedaa transitionka inuu iisoo gala. marka saana ugu soo galaa. sidaas ayaan text u geli karnaa. waxaa noo xiga markaan textiga gelino oo aan sameyno kadib, waxaan sameyneynaa inaan gelino music, qaybta ugu muhiimsaneed. music intaanan gelinin ka hor waxaan ku hormaraynaa, haddaan rabno inaan marka video kale aan gadaal inaan ugu darno aan rabno, calaamadaas oo keliya taabanaysaa oo balaaska calaamadaasi balaas markaa dhahdo blank baa rabtaa mis video ama video inaan ku daraa rabaa. okay, al video marka video meel kamid ayaan marka video kasoo qaadanaya, dhacna waa gelinaya. marka video isoo geliyey waa kana intoo ii keenay. marka isla videogana aan adeegsan karnaa, saasa ugu dari karnaa. marka waxaan u gudbaynaa marka inaan haddana aan transition isticmaalno. transition marka calaamadan labada muuqaal laba dhexdooda calaamad yaroo cadaana ku taala, calaamadaasaa taabanaysaa. transitionka aad isticmaali laheeda marka aad dooranaysaa. marka sidaana ka dhigay, kadibna haddana mid kalena tegaysaa isla maaragtay inaan ka dhigo glitch oo kale, sidaas oo kale. marka videoga markaas aad progresso aad fiiriso waxaa arkaysaa inuu glitch soo qoro. marka qaabkan ayaan transition ugu dari karnaa. marka waxaa marka aan ku daraynaa hadeertaan inaan music ku darno. iyadana aad iyo aaday u sahlan tahay. waxaan taabanaynaa oo keliya calaamadaasi oo music ayaa taabanaynaa. kadibna haddaan rabno marka inaan music aan ku darno, music anaga aan leenahay, marka waxaan adeegsan karnaa music adiga aad leedahay ama hees Soomaali ama wax saas waxaad tagaysaa marka tracks ayaad tagaysaa. tracks markaa dhahdo iTunes, haddii oo iTunes wax kugu jiraan, haddaa rabtidna intaa ka iibsan kartaa oo music toosa usoo iibsan kartaa, waa soo geli kartaa. laakiin anaga waxaan adeegsanaynaa meeshaan kuwan oo dhan oo meeshaan ku yaala xataa waa isticmaali kartaa, waa free. haddaa iibsato appka ayagaaba kuu keenayo ayagoo free marka waa daaraysaa, waa fiirinaysaa, waxaa leedahay. marka anaga hadda waxaan rabnaa inaan soo saarno music oo anaga aan leenahay. ma rabno inaan meeshaan tusaale ahaan haddaan rabo meesha inaan kasoo download gareeyo vlog iyo waxyaabo fara badan oo free oo aad soo download gareysan karta ayaa jiro. laakiin waxaan ku tusayaa marka aan music oo adiga aad leedahay, ama hees Soomaali ha ahaato ama iskale wax adiga aad ka heshay oo adiga oo favorite-kaaga uu yahay. marka meeshaan oo imported la dhahayo ayaa taabanaysaa. kana marka masalan aniga midaana igu jiro, midaana aan fiirinayaa. okay, marka midaana aan kusoo download gareeyay aan keena meeshaan iidaa. marka waxaan leeyahay use, kadibna use markaan dhaho, marka waxaan bilaabayaa marka inaan muusikadii aan meeshaan keeno aan ku hagaajiyo. marka qaabkaas ayaan music u keeni kartaa. marka kaliya waxaa u baahan tahay muusikada inaad haddaa kasoo heshay inaad telefoonkaaga kusoo download gareysato, kadibna meeshaad ayaa ka isticmaalaysaa. marka wax dhan aan controlno aan sameyno, kadibna waa controleynaa qaabka inay wax dhan wada saxan yihiin. marka oo kulli ay wada saxan yihiin aan aragno, kadibna waxaan tegaynaa qaybtaas calaamadaasi kore ayaan tegaynaa inaan export ku sameyno ayaan doonaynaa. marka export ayaan leenahay, way fududahay marka qaabkaa rabtid inaa export u sameysid. haddaa rabtid marka export markaa taabatid waxaad tegaysaa marka resolutionka waxa kugu horeeyo 1080p maa rabtaa, 4K maa rabtaa. marka hore meeshaas ayaa ka dooranayna. marka aniga waxaan sameeyay 4K aan u baahanahay, ilaan telefoonkayga wuxuu duubay waa 4K. haddii uu telefoonkaaga uu duubay 1080 ama HD hadduu duubay, marka meeshaas waxaa ka dhigaysaa HD ayaa ka dhigaysaa. dabcan haddii adoo HD ku duubtay 4K ka dhigto, hadhow resolutionka video qurux badan makuu soo baxayo. laakiin video aad 4K kusoo duubtay haddaad rabto inaa export ahaan aa u sameyso HD ahaan 1080 video oo crisp oo sharp oo qurux badan ayaa kusoo baxaya. marka haddaad anaga
4K aan ka dhiganaynaa 4K aan ka dhiganaynaa marka anaga 4K aan u isticmaalaynaa 30 frames per second haddaan rabno, laakiin waxaan adeegsanaynaa maadaama aan Europe ku noolahay 25 frames per second. kadibna formatka move waa okay. marka inta halaha 183 megabyte waa file yar oo noqonaya. kadibna waxaan leeyahay marka save, kadibna export ayuu ku sameynayaa. kadibna meesha aad rabto ayaad u adeegsan kartaa. marka waxaan kugula talinayaa inaad soo download garaysato, aad isticmaasho haddii aad jeceshahay inaad videoyaal duubto oo videoyaal qurux badan aad soo dhigto social mediaha. abkani wuxuuna aad iyo aad ugu fiican yahay resolutionka aad rabto ama aspect ratio aad rabto ayaad isticmaali kartaa. haddii aad u baahan tahay inaad soo dhigto TikTok ama Instagram ama Facebook ama YouTube. intaas ayaan kusoo afmeerayaa maanta casharkan. waxaana rajaynayaa inaa aad iyo aad ugu heshay. dabcan haddii aad ka heshayna subscribe saar oo la wadaag asxaabta adigoo saarayo like sida caadada ah. waxaana rajaynayaa inaan ku kulanno cashar kale oo aad iyo aad u xiiso badan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain.